hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta deeq raashin gaarsiisay 100 qoys oo kamid ah dadkii ku waxyeeloobay roobab dabaylo watay oo dhawaan ka daay degmooyinka Balugubadle iyo Gumburaha Banka ee gobolka Hawd. roobabkaasi oo waxyeelo ballaaran u geystay dhismayaashii kala duwan ay deganayeen qoysaskaasi. deeqdan la gaarsiiyay dadkan ay waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkaasi dabaylaha watay ee ka daay gobolka Hawd ayaa ka koobnaa raashin, baco, bustayaal iyo agab kale. waxaana madashaasi lagu qaybinayay deeqdaasi raashinka hadallo kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen maayirka degmada Balugubadle Cabdi Iimaan Jaamac, barasaabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide, gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed. baaqi aan dirnay ee ay xukuumaddu ka soo joogtay sida degdeg uga soo joogtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo hormuud ka yahay gudoomiyaha masiibooyinku boqolkii qoys oo horeeyay ee ambaban guriga ka duwan amba guriga ka qaaday dabayli dadkii maanta waxa loo keenay raashin, bustayaal, baco iyo dhar isku jira ayaa loo keenay. waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaamiye Mudane Muuse Biixi Cabdi sida dhagaha nugu leh ay markiiba ay uga soo jawaabeen baahidii dadka ku dhacday ee dibadda fadhiyay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa gudoomiye Faysal Cali Sheekh wuxuu noola shaqeeyaa si dhow oo mas'uuliyad ku dheehan tahay. wuxuuna soo gaarsiiyay intaas soo hore raashin iyo deeq ayuu dadkan soo gaarsiiyay. maantana waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu na soo gaarsiiyay maadaama oo halkan duufaan ka dhacay oo raxmad Ilaahay keenay ay dadkii dhibaato u geysatay inuu noqday hay'adda koowaad ee ka soo jawaabta. aad iyo aad baanu mudane Faysal kuugu mahadnaqaynaa mudane gudoomiye. wasiir Khaliil waxaan ugu mahadnaqaynaa waa wasiir og dadka deegaankiisa dadka ku nool iyo waxay qabaan. waa wasiir noo xodxoda meel kasta oo dadka gobolka ku nool dani ugu jirta noo xigaya. waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaan u mahadnaqayaa. madaxweyne aad iyo aad baanu haddaanu gobolka Hawdnahay kuugu mahadnaqaynaa. xukuumadda Soomaaliland mar walba ay u taagan tahay inay dadkeeda u damqato meel kasta oo ay dhibaato ay ka timaado. waxa farxad noo amaanta runtii in aanu keenno ka hay'ad ahaan hay'adda Netford in aanu keenno dadka la soo register gareeyay ee maamulka gobolka iyo degmadu runtii ay soo qoreen ee dhibaatadaasi ama aqal ka dumay ha noqoto boolal ka dumay ama deegaanada kale miyiga oo iyada lafteeda ay waxyeelo u geysatay. marka runtii 100 qoys baanu sidnaa oo raashina oo iskugu jira 6 nooc oo raashina, bariiskii iyo sonkortii iyo daqiiqdii iyo timirtii iyo saliidii iyo faasoolihii runtii leh. sidoo kale waxaan ugu soo daray bacihii ay dadku kooyga ka dhiganayeen iyo bustayaal. sidoo kale waxaan ugu soo kordhinay dhar ay qaybsan doonaan oo iyaduna budnaada. maanta oo ah maalin salaasa ah oo runtii ay ka horeysay 2 cisho khamiis jimci marka dhacday sabti axadna ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu inoo fududeeyay inaynu soo diyaar garowno si aan dadkaas u cawilnaq u siin lahayn. ilaahay mahadi weeyaan 100 qoys ba maanta halka lagu siinayaa guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada ay ku dhacday dhibaatadu oo degmada Balugubadle iyo degmada Gumburaha iyo Banka u dhaxeeya. ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'aala madaxda qaranka ee dareemay dhibaatada dhacday kana jawaabay oo nagu soo amray inaan degdeg uga jawaabno arrintaas ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakeeyo. maanta waa ogtihiin dalkeena waxa ka jira diyaar garow ballaaran oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo runtii guulo ballaaran ka soo hooyay wada hadalladii inoo bilaabmay nakii Soomaaliya oo runtii aad iyo aad dareemaysaan in shucuurta Soomaaliland ay wada sarreyso oo la iswada aaminay oo maartay ay ka dhacday halkaas in aynu waxaynu u baahnayn iyo doodeennii aynu fagaaro caalamiya aynu ka geysano. taasoo runtii waxa weeyaan waa himilo iyo rajo inoo soo korodhay. ugu dambeyntii ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala inuu dadka dhibaatada ku dhacday ilaahay u booqadhayo insha Allah. Maxamed Shiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balugubadle.